la subscribe gare ka faa'iido aqoon adiga oo taabanaya halka as bartaayra cas baad saa u click gareynaysaa marka saa u click gareysid si aad ula socotid wax kasta oo soo gelino bismillaahir rahmaanir rahiim kusoo dhawaada barnaamijkeeni ka faa'iido aqoon maanta waxaan baran doonaa customer-keena macmiilkeeni oo inoo sameeyay dalab intuu inoo sameeyay dalabkii alaabtu inoo sameeyay ma hayno inagu waxaan u sameynaynaa order oo u dalbaynaa purchase order baan sameynaynaa maanta process ka dheer baan soo marinaynaa order u sameynaa haga doon receive gareynaa saas soo wareegaysa markaan order u sameynaa inta kale waan sii garanaynaa laakiin purchase order iyo sida sales order loogu sameeyo maanta soo baranaynaa marka waxaan soo qaadanaynaa sales ku dhufo order kabacdi waxaan ku dooranaa customer-ka aan doonayno inuu customer one kaas aad doortay kabacdina wuxuu yiri waxaan u baahanahay alaabtii baa kuma jirto marka alaabtu inoo soo diray waan ku qoraynaa degdeg baan u sameynaa alaabtu inoo soo qoray waa inventory party weeyaan oo ka sii dooranaysa kabacdi inventory party-ga item-kaygaas aad ku soo qoraysaa item-kaygaas waxa ka soo qaataa lambaraba ka soo qaad ama waxaad tiraahdaa inventory baad qoraysaa 001 0012 badhe sabayta number manufacturer number le intaana male cost-geyga inuu taagantay iminka qiimihii waan u dalbaynaa un hadhow aan gelinaynaa sales price no ma baahna waxaan oo dhan ma baahna marka saa gelino waxaan sameynaynaa reorder point-idii waxaan oo dhan ma baahnin waxaan sameynaynaa un okay baan sameynaynaa specify imkan account to be associations okay kaas uu account kale xiriiray inoo sameeyo buu leeyahay waa sales baan inuu gelinaysaa wixii la iibiyo dhan kabacdina okay ma sameynaysaa si degdeg ah u sameynayna waxa content ma leh degdeg ah u sameynayna si aan u neefiyo kabacdi marka customer-ka soo gelisid wuxuu yiri alaabtaan u baahanahay waa taas waxa weeyaan alaabtaas aan u baahanahay invoice-ka number-ka amba magacaas aan bedelina tan bani edit gareynayna doontii alaabtaas aan u baahanahay yiri alaabtan waxa weeyaan sharaab baan u baahanahay sharaab mango ah waxaan naga dalbaday sharaabka mangada ah 200 oo case weyn ka dalbaday 200 oo case weyn ka dalbaday raadkii ku doonayaan waxa weeyaan $10 habadiiba taas weyn ka dibiyay markaas kabacdina waxaan sameynaysaa $200 buu dalbaday save and close dhamaan soo dhaqsanayna marka order-kii imika soo dalbaday oo uu sameystay waxaan sameynaynaa wuxuu ma hayna alaabtii dib u noqon meena imika ma sameynayno sababtoo ah ma hayna alaabtii kabacdi waxaan ku dhufanaynaa purchase order baan sameynaynaa purchase order marka sameysid ayaad sameynaysaa halkan ku soo dhufanaysaa customer-kii alaabtii xaganadkiisa customer-kii suppliers-ka alaabtan hayo waa kii waxa inoo hayo horta Thailand-kaas hayo bade Thailand-kaas marka halkan item-ka ka eegina Thailand baan ka keenaynaa alaabta soo kan ay noqonaysaa marka alaabta markuu ugu dhufto waxaan soo iibsanaynaa inagu wax badan baan soo iibsanaynaa kun mid baan soo iibsanaynaa oo midkii raadkii naga siinayo isagu inagu toban baan siinaynaa $5 baan naga siinayaa customer-ka aan u dalbaynaa waxa weeyaan customer-ka aan u dalbaynaa customer one halkaas lagu soo qoray ay dalabkan ninkay naga leh inaan la waxa weeyaan customer-ka markaas lagu qoray kabacdi save and close badanaysa gana message ka ugu qori karaysaa aad customer-ka oran save and close markaas save and close ku noqonaysa markaas ay ku soo dhamaanaysa taas oo dalabka uu sameynaysa dalabka markuu yimaado receive inventory halka uu soo maraya soo soconaya ilaa uu marka dambe inuu yimaado markaas markaanad haynin order-kana saas aad u dalbaysaa markaana sales order-kaagu aanu ku diyaarahayn sidaas ayaad u dalbaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.